restaurant Fish and Steak waxaan bilaabay 2006 bartankiisii waxaan ka bilaabay meel yar oo ku taala dhexradhifta meesha la agteeda waxaan ku bilaabay 4 miis ma sha Allah maanta waa balaaratay heer fiican bay maraysaa markaa bilowgii waxaan samayn jiray oo casho kaliya aan ku bilownay markii dambe waxay igu dhalatay inaan sameeyo quraaci iyo qadadii inaan raacino markii dambe restaurant weyn bay noqotay markaa subaxii waxaan sameynaa quraacida cuntadii Soomaalida مثلا beerko kale waxaan sameynaa fuulka waxaan cuntada Soomaalida aan doorkii waxaan sameynaa lafteeda cuntada Soomaali iyo cunto Asian isku jira مثلا biryani oo kale habeenkiina waxaan sameynaa international foodkii sida pizza oo kale steak lobster waxaan sameynaa French cuisine buu badan yahay cuntada oo aniga fiilkayga wuxuu yahay cuntada Faransiiska soo bartay inkastoo garanayo cuntadii kale international ka aan bartay markan u dambeysay waan qurxinay hotelkii waxaan u sameynay meelo privacy oo dadku maaragtay ay ku kala nafisaan qolal yar yar iyo laba hoolo waaweyn oo lagu qaban karo laba hoolo waaweyn oo conference room oo maaragtay lagu qaban karo meherada iyo special occasions oo kale waxa kaloo jira qayb ballaaran oo u dhaxaysa mutulada iyo hoolasha dhexdooda qayb ballaaran qaybtaasi waa open air waa meel kuraas badan baa taali miisas qofkii doonay inuu ladies ka fadhiisto hawada halkaas uu tagaya u fadhiisanaya waxyaalahan soo biirnay waxa kamid ah inuu sameeynay miskiid weyn ma sha Allah oo 80 qof noo qaadi karaya macaamilkaygu dhan ku tukan karayaan iyo dadka dibadda waxa kale oo leenahay baarkin nagu filan oo gudaha iyo dibaddaba ah ka soo qaadi kara ilaa iyo 50 baabuur noo qaadi kara gudaha dibadda marka la isku daro waxa kale oo leenahay internet wireless internet oo waliba aad maaragtay u fudud oo ka soo sahlaya dadka maaragtay doonayeen intay cuntada cunayaan inay maaragtay adduunka ku xirmaan